هذه بيئة وسمرة بعد استيعابان نحريستو ذا صوب بدن يصير عاو هالكن كم وقت معمولك الشعبك دولة الصومالية أما معمولك الشعبك دولة قبلات كم يدارون في الصومالية مركا مدربان اسكون التشدان كان فكران اللي يسو تنازلان waxay muujinaysaa in si degdeg ah horumar lagu gaari karo reer galmudug ayaa taasna iftiimiyay waa idin hambalyeynaya reer galmudug lix bilood ama sanad ka hor dad badan kuma fikiri karin in galmudug ay marti geli doonto shir noocan ama inta ay isku iman doonto maadaama lagu fikiri karin waqtigaas waxayna tusaaleynaysaa inaan gaari karno meel maanta aan ku fikiri karin haddii ay ummadda Soomaaliyeed isu timaado shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegaysi isu tanaasul kulligeen aan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhib ah inkastoo dadku ay walwalsanaayeen wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warmutiyeedka iyadoo bilow laysuguna soo laaban doono dhuusamareeb si loo dhammaystiro xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano wada shaqayno كسرنا مرحلة الدلكن وكجرو سي تاريخ دو أي نوع حسطو إن النهاية كوي دلك بوه سري من نماية برواقه وبالله حال كان لسوق كاني وبالله شيء كاني لكن هرمركا مالما خوان أنكو جاري وحنوسي ديري قلنا إذا إن دمسترنو إنت نورد waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego in dhammaan madaxdii halkan isugu timid oo hormuud ku yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno sidii dalka aan ku gaarsiin lahayn meesha ummadda Soomaaliyeed ay rabto waxaan kaloo ku heshiinay inaan isdhegaysano weliba marka aan kala aragti duwanahay si aan isugu keenno aragti midaysan oo dalka u sii horseedi karta horumarka dhaqaale amni iyo siyaasadeed oo aan gaarnay 3 sano ee xogaagii aan dalka joogay intaas ka sokow waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka reer galmudug sida sharafta ay noo soo dhaweeyeen waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan joogitaanka ay la joogaan martida tirada badan ay idinka caawin doonto horumarka iyo dib u dhiska galmudug